دمان وحنكم سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد waxaan u arkaa dastuurka hadii ba horta xabad xaawale lagu soo daray inay kelmad tiraado lama wada jeedo lagu ma tuman laakiin waxa fiicnaan lahayd dumar badan baa jooga xaqna ku leh tirana aan ka yareyn ragga hadal kana wax ka oran kar lahaa in inta in ka badan lagu soo marti qaado oo hadalka la siiyo ay ku qurux badnaan lahayd cadaaladdu taasi lagu buuxsami lahayd hase ahaatee horta dastuurku waa maxay dastuurku waa xeer ummadeenan Somaliland waxaynu lahayn xeer baynu lahayn haddaynu magaalo joogno haddaynu miyi joogno waxaynu lahayn xeer waxaynu jir qofkaas waa magan qofkana waa marti waxana waa amaano waxana waa xaqanaas waxa loo jiray waxa waa la xafidaa tan waa inan kan waa ilmo yar kan waa qof naafa ah kan waa qof dulman waxaynu lahaan jirnay oo aynu leenahay oo halka ku soo gaadhnay xeerarkaas ay ahayn quruxda badan ee dadka kala haga oo gardarrada ka kala ilaaliya dabcan qoraal ma jirin markaa laakiin se waynu ku soo kori jiray walaynu ku soo barbaarin jiray waxa aynu qabanayno iyo waxa aynaan hungureynayn iyo waxa aynu xafidayno waxa soo dhan waxay xeer ilmaha yaraanta lagu soo koriyo waxaanu garanaynaa martiba guriyaheena timaada shay qof marti leeyahay ayaa ilmo yar oo caruura la arkaa oo taabto ha taabaninka hooyo ha taabaninkaas waxa weeyaan martida leh waxa ha taaban waxa qanaase waxana seeta xageed ka keentay ilmaha yar baa lagu soo barbaarin jiray xishoodka lagu soo barbaarin jiray cadaaladda lagu soo barbaarin jiray ilmahaasuna kalsooni buu ku kori jiray inta isagaba lagu soo barbaariyay in isagana lagu la dhaqmi doono oo inanta yare loo diro sonkorta loo diro ammaan bay ku bixi jirtay iyadoo og inaan cidi dhexda u fadhiisanayn inaan la farxumaynayn inaan la xoogayn waayo waxa damaanad u ahaa hayay oo de waa inane yaa taabanaya waa inan kelmadaas ayaa badbaadinaysa waa inan tii baynu ka dhaqaaqnay hadaba markaynu magaalo nimid aynu ka soo fogaanay dadkii la xijcelada u qabay ama qiimeynaya xeerka aynu ka soo fogaanay ayaa markaa waxay noqotay inaynu yeelano markaa xeerar madaniya xeerarka madaniga markaa waxay ku salaysan yihiin waxa aad shakhsiyan xaq u leedahay waxa qaranka ku leedahay waxa qaranka kugu leeyahay waxa qofkan kale la nooshahay wuxuu xaq kugu leeyahay haddii aan xafidaadii iloob oo waxaan xaq u lahayn aan hungureeyo waxa markaa jiray maxkamadihii baa markaa dadkii kala hagaya ornaya waxaan xaq u lahayn ayaa taabatay ood qaadatay ood hungureysay ood ku camal fashay waxaan nasiib darro noqotay markii ammaan la siiyay kii xarfadda sameynaya dheeraadka ah kii ka xishoon waayay inuu wax hanti aan lahayn hungureeyo la ammaanay alla ninkaas waa fariid hayaa miyaad arag waxay noqotay wixii la isku caayi jiray ama laga xishoon jiray markii dadka lagu ammaanay ayaa horta xeerkii inaga kala burburay xafidaadiisina maxkamadihii ay malaha ay ka gaabiyeen oo dadkii kala qaban waayay markaa haddii dadka la kala qaban waayo oo xeerkii iyo xishoodkii iyo xaqii iyo la kala qaybin kar waayo la kala dhexgeli kar waayo de isku daadasha imanaysa waxay imanaysaa ku qabso ku qadimayside waxyaabaha imika maahmaaha cusub soo saaray ayaa markaa meel maraya waxay noqonaysaa markaa kii xishoonayay in laga xaq bato kii xaqa ilaalinayay in gardarro loo geysto markaa horta xeerku dastuurku waa xeer waxaana wadanka lagu qaran ummadda lagu qiimeeyana wuu yahay nabadgelyadeedu waa caynkee xafidadeedu waa caynkee
dastuurka sidee dalkaas ugu dhaqmaa sidee buu u badbaadiyaa kuwa laga adag yahay kuwa laga weyn yahay kuwa laga xoog weyn yahay kuwa laga hanti badan yahay sidee loo xafidaa sidee loo ilaaliyaa haddii ammaantu jawaabtu ay noqoto ma dalkaas waa dal nabada oo dadka lagu nabadgeliyo waxay tilmaan u tahay inay dastuurkii iyo xeerka ay dhigteen ay ku dhaqmeen marka aqoonsigan inuu raadinayno iyo waxa weeye horta dadnimadeena wax u marxaati fura dadnimadeena wax u marxaati fura ammaanadeena wax u marxaati fura inaynu nahay dad heshiis lala geli karo maxaan ku raayay dawlad iyo heshiisyo lala xiran karo marka horta dastuurku ixtiraamkiisu leeyahay sida xeerarkeenu ku soo dhaqmi jiray ee waalidiinteen iyo awooyaasheen ku soo dhaqmi jireen ay xafidaad u lahaayeen ay ixtiraam u lahaayeen ayaa dastuurkana xaq u leeyahay marka waxaan aad ugu faraxsanahay in wasaaradii maanta u xil saaran tahay oo qof mas'uul ah oo wasiira oo garanaya xeerkan iyo dastuurkan garanaya uu hogaaminayo aad baan ugu faraxsanahay in caruurteena la baro waa waajib in la saaran weeyaan way haddaan ilmihii la barin dee garan kari maayo innagaanay waajib ugu noqon tahay inaynu barnana xafidaadii qodobadii ku jiray dastuurkaa ku jiray ee na kala badbaadinayay isaga iyo dadka kala badbaadin in isaga in la baro ilmihii marka ilmaha yareed ku qabato qish ku qabato ama wax yar ku qabato wuu kula yaabayaa markaad qabato wuxuu haya oo waa la wada sameeyaa maxaa aniga un la ii qabanaya maxaa aniga maanu badan leega leeyahay way ilmaha laguma soo barbaarin laguma soo korinin ka xishood waxa aad imtixaanka ku gashaa wixii adigu aad baratay adiga ka soo go'ayay imtixaanka ku gal laakiin se warqadii saaxiibka ku siiyay oo ka qaadatay ku noqon mayso mustaqbal marka waxa weeyaan ku dhaqnaanshaha ixtiraamka dastuurku waa wax waajib nagu ah waxaanan ina rag ka baryaya way ka inta badan jabaya waa ina rag in loo sameeyo haddaba hadduu xishood iskaga ku ilaalin waaye haddii uu xoog isleeyahay wax ku qaado in haddaba maxkamaduhu ay ilka dheeraada la soo baxaan oo xoog dheeraada la soo baxaan oo muruq dheeraada la soo baxaan oo ay hirgeliyaan dastuurkii hadduu dastuurkaas naga leeco maxkamadihii baa ayaa naga jabiyay ummaddu cid kale eersan mayso dadkii ilaalinta nabadgelyada dastuurka ilaalin lahayd ayaanu ku soo dhaweynaa oo ka baryaynaa oo magan u nahay in xaawadu xaqay leedahay siiso caruurtu xaqay leedahay siiso naafadu xaqay leedahay siiso kala leeyahay waa laga badan yahay la xaqiisa siiso ka indhaha la xaqiisa siiso dumarkana xaqooda siiso way la'aantood meel mari maysa ina ragow wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أهلا وسهلا.